markay dhacday dawladdii dhexe Soomaaliya waxa bilowday dagaal sokeeye oo dad badan noloshoodii ay ku waayeen halka qaar kalena lixaadkoodii ay ku waayeen dadka lixaadkooda ku waayay ayaa waxa isugu jiraan rag haween caruur iyo waayeel inta badan oo bulshada tiro fiican ku dhexleh inkastoo aan xaqiijin cadadka rasmiga ah ay gaarsiisan yihiin dadka lixaadka la ayaa waxa soo wajaha inta badan dhibaatooyin badan oo kaga imaanaya bulshada ay la nool yihiin waxaana ku adkaata nolosha maxaa yeelay ama helaan waxyaabaha asaasiga u ah nolosha sida waxbarashada shaqooyinka iyo dhaxgalka bulshada waxayna dhib badan kala kulmaan sida ay bulshada uga dhex muuqan lahaayeen taasoo marka dambe keenta in bulshada ay ka dhex takoormaan oo xitaa qofkaasi dhibaataysan uu waayo in magaciisa asalka ah loogu yeero sida curyaan dhagool camool indhoole iyo wixii la halmaala mar aan ku booqanay goob ay isugu yimaadaan una ah hooy ay wax ku bartaan ayaan waxaan weydiinay waxyaabaha bulshada ay kala kulmaan oo iyaga caqabad ku ah baahi waan qabnaa aniga hadda gacmo maleeya meel cariiriya la igu riixa oo gacmihii aan ka qabsan karin inaan dhacay madiidi ma dhacaayo inta guurguunaas ka qofka salku ku saqaaya baabuurka markii hal saar warwad naga dhig baabuur ma saarana naga dhigaa leeyahay waata naafo waay baabuurka ushi markay dhigto oo gaariga saa u qabsato ayada meel salka saaranin baa ayaa laga dajina dhibaato weyn baan ku qabnaa dadkan lagu xaqabo oo adimaha qaba dhibaato weyn aan ku qabnaa baabuuray nooma roono dadkan kala nooma roono waxaan noo takoor goonayna saareen sidoo kale waxaan weydiinay dareenkooda ku aadan dawladda cusub ee uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waxa ay ka filanayaan kanaafa ahaan cusub Farmaajo meesha hadda aan warka aan ka jeedihayo waxaan ku fadhinaa naafo indhoole jiis curyaan oo dhama isugu timid waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Farmaajo annagoo ku faraxnay doorashada la doortay intii dooratayna dadweynaha Soomaaliyeed raalli ahaantooda inay tixgeliyeen inay ku faraxsan yihiin inay doortaan Maxamed Farmaajo waxaan ka codsanaynaa madaxweyne jacaylka waa bilowdaa waan dhamaadaa jacaylka lagu qabo adigoo lagu qabo ka dhamaado xilkaas ka dhamaado iyo sadhamaan inta lagu jeclaado aakhirkii haddana ku dhamaatid farxumo ku dhamaatid taas ilaahan kaaga maangalnay waan kaaga digaynaa waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idinkiisa dawladda cusub inay noqoto dawladdii aan ku ilaahay horta baahida gooya baahida bini'aadanka ma dhammaato laakiin isaga waxaan ka rajaynaynaa sidii 90% inay baahideena daboosho Maxamed Cumar Cabdinuur Dhaqane Goobjoog TV